Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Deadline-nada ugu dambeeyay Mastercard Foundation Scholarships oo jaamacadaha partnerka la ah oo aan hadda ay hore idinkugu soo sheegay haddaadan tegina tag TikTok-gayga. Mastercard Foundation dhexdiisa fundingka ay ku siiyaan, laakiin jaamacado partner la ahaa jiro oo la shaqeeyo. Jaamacadaas ayaa toos u dalbanaysaa. Marka jaamacadaha sit waxaa ka mid ah Sciences Po France graduate level application platform wuxuu furan yahay early October, deadline-kan waa 4 January. Kan waa ka gaartaa. Midka labaad waxa waa University of Edinburgh post graduate, taas waxay soo ahayd dadka muxuu ahaa bachelorka doonaya tan France. Tan kalena waa Edinburgh, waa post graduate, waa dadka masterka rabo. Application wuxuu furmaya 14 October 10 subaxnimo UK time. Registration-ka eligibility stage-ka isdiiwaangelinta iyo xuquuqda u leedahay waxaa la dhameynaa 14 November 2025 shanta galabnimo. Main application wuxuu xirmayaa 21 November bisha 11aad ee sanadkan aan ku jirno muxuu ahaa 2025. waxaa kaloo ka mid ah University of Western Cape Town South Africa cidii joogta 2026 intake deadline wuxuu ku ekaa 30 ku ekaa. Marka annaga waxaa noo furan midaan Edinburgh iyo midda France haddaan taabto oo dadka iskuulada ka soo baxay ay ku badan yihiin oo aan halkan tagno all cookies xiraysaa. Fees scholarship financial aid ka Mastercard Foundation waaye. Graduate study noqo. Information for applicants, download tuition fee scholarship guidelines. Graduate schools halkaan ay tahay admission timeline kan waa kana. If you want to apply both Sciences Po and Master Foundation, يعني Master Foundation lacag ka bixinaysa Sciences Po labadaba waxaan kugula talinaynaa si adag inaad bilowdo isdiyaarintaada dokumentiyada ku saabsan. Application platform wuxuu furmayaa October wuxuuna xirmayaa 4 January. Marka waa ka gaartiin. Sciences Po admission decisionska waa muhiim, dadka badanaa waxay ku dhahaan marka hadda application sameysto goorma la aqbalaa. Yacni waxaa dhexdhexaadka December 2025 ilaa February next year ilaa April 2026 hadba waxay ku xiran tahay taariikhda aad dirto codsigaaga. Scholarship waxaa loo allocate gareynaa oo la siinayaa dadka bisha shanaad 2026. Master programmeskana waxay bilaaban doonaan oo iyagan lasoo afjaraya August. Marka macnaheedu waxa waa bachelor iyo master labadaba waa dalban kartiin. Eligibility criteria waa inaad tahay aad haysataa dhalasho Afrikaan ah, dadka dual second nationality haysto wadamo kale ka haysto eligible uma aha. See the list of institutions. halkaan ay ka fiirinaysaa listiga institutionska ka qayb qaadanayo. Waa inaad dhamaysatay training foundation ama mentoring program oo isku xiraayo ururkan program organization partner with Master Foundation. Be in genuine need of funding for your higher education. aadna waa inaad dhibaato ugu qabtaa inaad lacag haysan si aad higher education u tagto oo dadka Soomaalida badankood haysto. Waa inaad muujisaa achieving change in Africa inaad wax isbedel ku soo kordhinayso. Taasna mar kale aan ka soo hadli doonaa oo muxuu ahaa waxaan idin tusin doonaa sida AI-da aad u isticmaalaysiin. Lama ogola AI, laakiin waxaa ku sameynaysiin brainstorm. Sidee ayaan u qori karaa? Horta af Soomaali waxa waa inaad ku fahantaa aad qorayso. wax haddaad af Soomaali ku aqoon af Ingiriis kuma qori kartid. Marka waxaan tusinaa brainstorm sidee loo qoraa in aniga sidee Africa rabaa inaan wax uga bedelso oo exercise gareyn karaa. Particular in the areas of public policy, major political siyaasadda, environmentiga iyo social transitionka. Waa inaad 35 sano ka yar tahay. University of your country of origin waa inaad ka haystaa. Marka halkaasi ta masterka halkaasi tu casaanka ka taabanaysa ka apply gareynaysa. Sciences Po application guidelines waa kaas.
linked inay ku jiraan. Admissioniska selection criteria halkaas itaa aan fiirinaynaa. Language requirementigan halkaas aan fiirinaynaa. yacni France hadday tahay bilingual program uu noqonayaa. Valid ID pass laga rabaa sharci. Proof of income inaad lacagta ay kugu filneen oo dhaqaale aadan haysanin. Tax waxaas kuma qosays bank statement ma la aqbalayo. Program admissionka marka halkaas itamaraysa ayaa applicationka buuxsanaysaa. haddaad rabtid inaad apply garayso halkaan ku dhufanay waa waxaan kugu la talinaynaa inaad apply garayso Emily Bounty Scholarship. intaas itaa idiin soo duubay applicationkana waa kusoo xijin doonaa. waxaan joognay in ay kugula talinayaan inaad apply garayso Emily Bounty Scholarships. haddii aad rabtid inaad multiple scholarships heshid waa inaad soo gudbisaa codsigaaga earliest yacni sida ugu dhaqsiyaha badan deadline-ka inuusan kaa dhicin. hubi in application deadline-ka uu scholarship-kaaga waafaqaayo maadaama ay kala gedisan yihiin scholarship-yada deadlineskooda. haddii lagu qaato oo science pro uu ku qaato but not selected for mastercard jaamacadda hadday ku qaadato laakiin aan lagu dooran mastercard inay lacag kaa bixinayso, it will be your responsibility to find other means. waa inaad adiga lacag kala heshaa. marka laba meel hal dhagaxa waxaa la rabaa inaad ku disho labo shimbirood. halkan markaad taabato scholarship-yadii iyo waxaa halkan usoo kala baxay science pro iyo arinta xagga yacni deeqda waxbarasho iyo dhaqaalaha ardayda aan European ka ahayn. overview-ga Emily Bounty, France Excellent, Eiffel, Mastercard Foundation, doctoral kuwan waa lacagta kuwa bixinayo. jaamacadaha ka qayb qaadanayo yacni halkan mujeeda under 25 inay ahaad 29 jir inay ahaatid waa qof ka yar. Mastercard Foundation scholarship shuruudaha dhan intay ku yaalin. School of Research scholarships depending on your home country. magaalada ka imaatan scholarship-yadaada ayay ku xiran tahay. yacni wadamada qaar ay siinayaan. hadda kan Latin waa North America, Middle East, Asia, UK. universityada waa kuwan markaa. adiga waxaa fiirsanaysaa French government scholarships 1 year master abroad students oo tuition fee-ga. marka halkan marayso ayaa waxaa sameynaysaa haddaa mastercard tahay find out Mastercard Foundation scholarships halkaasaa ku dhufanaysaa. haddaa tahay bajularna Eiffel scholarships ku dhufanaysaa. submission deadline-ka waa 19 October. scholarship-kan Eiffel Tower hore adii kugu soo dhigay. eligibility-ga oo master degree-ga waa inuu 29 sano ka yar tahay. haddii aad master eligible u ahayna well as the undergraduate xataa waxay bixinayaan bachelor degree ay bixinayaan kuwan. sida lagu siinayo ama lagu guddoonsiinayo Eiffel scholarship does not cover tuition fee. iyo tuition fee ma bixisa Eiffel. yaa kuwii kor aan kusoo sheegay ayaa bixiyaan. the monthly grant amount oo master scholarship la siinayo waa 1200 oo muxuu ahaa euro ah. scholarship-kaaguna wuxuu soconayaa course-kaaga hadba intay ku xiran tahay. application-ka first time application aad tahay adiga qofka markuu ku dalbanayo. requirement-ga CV laga rabaa. deadline 19 October waaye. Paris time. download the tuition and scholarship guides. you can reach the compass filling your contact information. okay. Eiffel Tower markaad joogto scholars for application waa kana grants financial. halkaanit grantiga lacagta cidda kugu fangaraynaysaa ka dalbanaya halkaanitan applicationka ka dalbanaysaa.
way furan yihiin applicationada. horeyna waa idinkugu soo diray, waqti horaa idiin soo diray. January 8 ay xirmayaan ilaa 30 March 2026. Contact us, click here. haddii aad rabti inaad ka qayb qaadato programka, halkaas taa applicationka buuxinaya. kuma soo koobi karo hal maalin keliya. hawshan way badanta, waana idiin sheegay saacado badan ay u baahan tahay. qofkii bilaabo si 1-to-1 waa ila soo xiriiri karaa, waa kula fiirinayaa. haddii ardayda kale wax dheer tahayna fadlan caawi oo ka qayb qaata. fursaddan way furan tahay.